ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay khilaafka soo kala dhaxgalay dalalka Soomaaliya iyo Kenya taasoo yimid kadib markii Kenya ay qaaday tilaabooyin dhowr ah oo ka dhan ah Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo la weydiiyay su'aal ku aadaneed waxa kaga aadan dowladda Itoobiya khilaafka soo laalaabtay ee Kenya iyo waliba Soomaaliya waxa uu sheegay in dowladdiisa ay muhiimad gaar ah siinayso in guud ahaan la soo afjaro khilaafyada ka taagan bariga Afrika isagoo sidoo kale xusay kaalin weyn uu sheegay inuu ka qaadan doono in Soomaaliya iyo waliba Kenya ay noqdaan laba dal oo saaxiib ah isla markaana si wada jir ah madaxda Soomaaliya iyo Kenya ay wada xalin doonaan khilaafka xilligan ka dhex taagan ee ku aadan xayiraado dhowr ah oo Soomaaliya ay ku soo rogtay dowladda Kenya. መያዝና ያንን ተጠቅሞ ያልተገባ ሀብት ማግኘት ሰው መግደል መዝረፍ ማስፈራራት ካለ ሁሌም ስጋት ነው ጉዳዩ ማንና መጣው waxa uu yiri ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed waxaan diyaar u nahay inaan xalino khilaafka ka dhex taagan dalalka Soomaaliya iyo waliba Kenya waa dhibaato haddii arrintaasi ay sii socoto. waxa uu sidoo kale tilmaamay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed in dowladdiisa ay ku guuleysatay inay la heshiiso dowladda Eritrea oo muddo dheer uu dagaal kala dhaxeeyay dalka Itoobiya xilligan ay la daaladhacayso dhamaystirka heshiiskii nabadda ee Suudaanta Koonfureed. sidoo kalena waxa uu tilmaamay inaan marnaba la aqbali doonin in sanadkan 2019 oo lagu jiro in bariga Afrika wadamada ku nool dadkooda ay dib u laabtaan isla markaana ay ku laabtaan khilaafyo iyo waxyaabo hore loogu soo gudbay loona baahan yahay ayuu yiri ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Dr. Abiy Ahmed in hore loo ambaqaado u adeegida shacbiga iyadoo la eegayo danaha wadajirka ah ee bariga Afrika.